wararka ka imaanaya degmada Ceelwaaq oo ka tirsan gobolka Geda ee dalkaasi Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo ka tirsan dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamo Kenyaan ah uu dagaal ku dhex maray deegaankaasi kadib tuhun iyo shaki labadooda dhinaca. Wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidanka ka tirsan dalka Kenya ay ka soo tallaabeen xadka u dhexeeya Soomaaliya iyo Kenya. Ciidankaasi ayaa la sheegay inay ahaayeen kuwo loogu talagalay la dagaalanka argagixisada, waxaana ciidankani qariyeen wejiyadooda iyagoo afka soo duubtay, waxaanay wateen gaadiid dagaal oo ay ku hubaysnaayeen. Intaasi kadib ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ayaa muujiyay shaki ku aadan in ciidankani ay yihiin ciidan ka tirsan ururka Al-Shabaab, waxaana la sheegay in qayladhaan ay u dirsadeen ciidanka dowladda federaalka ay soo gaadheen ciidamo xoojina si looga hortago weerar kaga yimaada ciidankaasi. Arrintaasi ayaa waxa ay keentay in ciidanka Kenya ay rasaas huwiyaan ciidamada dowladda federaalka iyagoo ka shaki qaba inay goobta ku sugan yihiin ciidamo ururka Al-Shabaab ah, waxaana halkaasi ka bilaabmay dagaal u dhexeeya labada ciidan, kaasi oo uu sababay shaki soo kala dhex galay labadaasi ciidan. Dagaalka ayaana la sheegay inuu muddo socday, lama oga khasaaraha dhabta ee labada ciidan soo kala gaadhay, balse xaaladda ayaa iminka ah mid degan oo xasiloon.